توبي توجو بورسيدا كان أبين خواتي معنا والله مكيلة والله بورسيدا كان عنيو أنا ميلة بورسيدا رما براد ليه عاد طاوي كلهم في حال يرنكس فلايت ليه عاد وكلهم تمالت كلوها المياه مبتع والله هو مبتع ويدي وكان أوكي عادي أصلية shacabkiisa dhan ogba youtuberka caanka ee King CK ayaa waxaa ka luntay boorso uu sitay isagoo ku sugan geegada diyaaradaha caalamiga ee Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. CK ayaa fariin u diray maamulka iyo saraakiisha ka howlgasho halkaasi waxaana uu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka caawiyaan sidii uu ku heli lahaa boorsadiisa. CK oo halkaasi ka ambabaxay ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka muuqaal kooban oo arintan uu kaga hadlayay waxa uu sheegay in uusan ogeyn halka ay ka baxday boorso uu sitay isagoona u aaneynayo in ay ku fashilmeen maamulka halkaasi in ay xafidaan mid ka mid ah boorsooyinkiisa. CK ayaa sheegay in alaab muhiim ah ugu jirtay boorsadaasi balse uu ku qasban yahay in uu baxo maadaama uusan ogeyn boorsadaasi halka ay taallo amaba halka ay ka baxday. haddaba sidan oo kale waxa ay boorso uga dhex luntay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Bole International Airport liicato oo ka mid ah youtuberada baraha bulshada caanka ka ah waxaase la sheegay in uu isagu dib u helay hase yeeshee haddana King CK ayaa waxa uu siyaabo kala duwan u dhaleeceeyay saraakiisha ka howlgasho geegada diyaaradaha caalamiga ee Bole International Airport isagoo ku tilmaaminayay dad tuuga ah. CK ayaa waxa uu saacadii ugu dambeeyay ku howlanaa safarkiisa uu ugu kicitimayo dalkaasi Austria ayaa ku wajahan dalka Austria halkaasi oo uu doonayo in uu gaaro dhawaanayeed markii bilowga bishan barakeysan ee Ramadaan uu soo gaaray qaybo ka mid ah Soomaaliya waxa uu ka degay geegada diyaaradaha caalamiga ee Bole International Airport waxaase uu booqday qaybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Somaliland Hargeysa waxaase uu sidoo kale booqday magaalada Jigjiga halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay. CK ayaa qoraal uu soo dhigay Instagram-ka qaybta statuska waxa uu sheegay in shaqadii halkaasi uu ka qabanayay ay u soo idlaatay waxa uu doonayaa inuu u dabaaldego guushiisa ah in 1 milyan uu gaaro dhowaan isla markaana waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo ka soo gacan qabtay gaaridda guushaasi isla markaana ay tahay in uu isagu u abaalgudo qaarkoodna uu halkaasi uu kula dabaaldego ama farxadda uu kula qaato. qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka waxa uu yiri shaqadii waa ii soo dhamaatay inaan 1 milyan wada galno diyaar u tihiin baan u maleynayaa 2 video oo muhiim ah ayaan soo gelinayaa buu yiri kadib kursigayga iyo dib ugu noqonaya. sidoo kale waxa uu yiri inta aan maqnaa videoyo waan soo gelin karay balse waxaan doonayay inaan 1 milyan ku galo kursigii isaga ahaa oo uu la jeedo halkii uu isagu ku noolaa ee Austria. waxa uu leeyahay waayo asxaabteyda garab taagnaa ilaa markaan bilaabayay YouTube-ka waxay ku nool yihiin intooda badan dalka Austria sida awgeed waxaan qorsheeyay in kursigii markaan ku laabto inaan wada galno 1 milyan buu leeyahay. CK ayaa u xirxirtay safar degdeg ah dalka Austria dhawaan ayad markii uu soo gaaray qaybo ka mid ah Soomaaliya waxa lagu soo dhaweeyay Jigjiga sidoo kale waxa uu ku sugnaa Somaliland waxa uu guddoonsiyaalkaasi deeq lacag ah oo ugu gurbanayo qaar ka mid ah dadka tabaaleysan iyo kuwa waxyeelada ay ka soo gaadhay abaarihii daba dheeraaday ee ku dhuftay waqooyiga Soomaaliya. CK ayaa waxa uu bixiyay qaybo ka mid ah lacag taakuleen ah oo ugu kordhiyay qaar ka mid ah dadka khayrka jecel oo iyaguna tabarucaadisi ka qayb qaatay. CK ayaa imika waxa uu sheegay in uu doonayo in uu jabiyo skoorkaasi uu xidho 1 milyan ee subscribers-ka halkaasi oo iyadoo markaasi halgan adag ugu jiray isagoona xusay qaar ka mid ah dadka soo gacan qabtay isla markaana garabkiisa taagnaa taniyo bilowgii YouTube-kiisa ama safarka dhanka YouTube-ka taasi oo uu sheegay inay tahay mid uu doonayo in uu isagu halkaasi ugu dabaaldego. haddaba waxay isweydiin mudan CK dhawaan waxa uu isagu markaasi banaanka keenay subscribers-ka ama tirada dadka ku xiran kuwaasi oo private u ahaa laakiinse imika ay u muuqato qof waliba waxaana uu ugu baaqaya dhammaan dadka baraha bulshada adeegsada iyo sidoo kale taageerada in ay gacan qabtaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay gaarsiiyaan 1 milyan ee subscribers maadaama wax yar ay uga dhiman tahay waxa uu haystaa 978,000 oo qofood oo subscribers u ah isla markaana wax ka yar 20,000 qura ay ku filan tahay in ay gaarsiiso tirada uu doonayo
in uu gaaro islamarkaana dabaaldegeeda uu sugi kari laayahay. King CK ayaa ka mid ah dadka baraha bulshada sida aadka loogu jecel yahay looguna xiiseeyo, waxaana dhowaanaha uu ka qayb qaadanaya howlaha tabarucaadda iyo sidoo kale taakuleynta ummadda Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee danyarta ah ee isugu jira kuwa aan wax haysan, siiba bisha barakeysan ee Ramadaan oo uu tilmaamay in ay tahay bil u baahan dadka in la garab qabto, sidoo kalena loo gargaaro islamarkaana laga caawiyo afurka aysan awoodin dadkaasi intooda badan meelaha miyiga ku sugan, kuwa xoolahoodu ay ka geeriyoodeen amaba ay dhameeyeen niraadii abaartii iyo dhibaatadii ka dhalatay abaartii dheereed ee ku dhufatay qaybo ka mid a Soomaaliya. Haddaba King CK ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu xaqiijinayay in uu gaari doono dalka Austria, waxaana uu sheegay in safarkiisa sababta ugu weyn ee ku dhalisay inuu dib ugu noqdo dalkaasi ay tahay maadaama uu ku dhow yahay qarkan uu saaran yahay in uu gaaro 1 milyan oo subscribers, in ay tahay in halkaasi isagoo ku sugan uu shuruudaasi xiro, sidoo kalena dabaaldegay fantasiyaha halkaasi uu kula qaato. CK ayaa waxa uu soo gaabiyey safarkiisii halkaasi Soomaaliya dhowaanahan uu ku sugnaa, waxaana uu doonayaa in uu imika bilaabo sidii uu kusoo gudbin lahaa muuqaalo kala duwan oo bartiisa YouTube-ka uu kusoo gudbin doono, sidoo kalena qaar ka mid a dadka bartaasi intooda badan adeegsado uu kula hadli doono isagoo soo gudbin doono muuqaalo kala gedisan. Haddaba CK ayaa waxa dhowaan waxa uu sheegay in isaga oo markaasi ah qof YouTuber ah islamarkaana aanu fan hibo u lahayn in uu yahay shaqsi imika ku taamay in uu gaaro 1 milyan oo subscribers, taasina ay tahay mid ka mid a rimooyinkii ugu waaweynaa ama riyooyinkii isagu ku riyoon jiray, islamarkaana ay tahay in dhowaan ay u rumoobi doonto dadyow badanna ay ku farxeen.